maxamed ibraahim raage telefishinka qaranka Soomaaliyeed muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo ayaa halkaasi maanta kulamo kala gooni-gooni ah kula yeeshay saraakiisha ciidamada waxgaradka siyaasiyiinta iyo maamulka gobolka iyo kan degmada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Baayo. faafahinta warkaasi waxay noo soo diray Cabdifataax Daahir Jayte. kulamadan oo gudoomiyaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cusmaan Jawaari oo ku sugan magaalada Baydhabo la qaatay aqoonta kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay daba socdeen kulamo xalay ilaa iyo galankii dambe ee shalay ka soconay hotelka Bakin ee magaalada Baydhabo oo halka gudoomiyaha wafdigiisu ay ku sugan yihiin. kulankii ugu horeeyay kulamada waxa uu waabarigii hore ee saaka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari la qaatay taliyaha ugu sareeya ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolada Koonfur Galbeed dalkeena Soomaaliya. waxa kulanka ay uga wada hadleen taliyaha iyo gudoomiyaha sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka gobolada Koonfur Galbeed dalka iyo in guud ahaanba goboladan deegaanada hadda ay kaga harsan yihiin maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab laga dhameystiro. kulankii xigay kulanka waxa uu la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo oo ay kala hadleen sidii xilligan loo sii ambaqaadi lahaa horumarada dhanka nolosha ah ee ka jira magaalada Baydhabo kuwaasi oo ku yimid iskaashiga ay sameynayaan maamulka iyo shacabka magaalada. sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kulan qaatay saacado badan la yeeshay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo horey ugu sugnaa magaalada Baydhabo. xildhibaanada ayaa gudoomiyaha waxay uga warbixiyeen muddadii halkan ay joogeen waxyaabihii uu qabsoomay iyo sidoo kale talooyinkii kala duwanaa ay ka dhageysteen qaybihii bulshada ay kula kulmeen gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo. waxaana ay xildhibaanadu tilmaameen in dadka reer Baydhabo guud ahaanba iyo maamulka xubnaha ay kala kulmeen ee gobolka Baayo ay si aad ugu qanacsan yihiin hanaanka hadda ay wax ugu socdaan gobolada dalka iyo guud ahaanba siyaasadda dalkeena Soomaaliya. dhammaanba kulamada uu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ku qaatay magaalada Baydhabo tan intii uu yimid waxay ahaayeen kuwo quseeyay sidii loo sii adkeyn lahaa dawladnimada dalka iyo horumarka ayaha Soomaaliyeed. Cabdifataax Daahir Jayte telefishinka qaranka Soomaaliya Baydhabo Channel. agaasimaha hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta shaaciyay inuu iska casilay xilkaasi isagoo kula dardaarmay ciidamada nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed inay sii wadaan halganka ay ugu jiraan xoreynta dalka iyo sugidda ammaanka dalka Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warramay iscasilaadiisa oo iska casilay xilkaasi uu hayay nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed. dhinaca kalena Axmed Macalin Fiqi agaasimaha hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed waxa uu ka warramay muddadii uu xilkaasi hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliya agaasimaha ka ahaa wixii uu soo qabsoomay isagoo dhinaca kalena ammaan u soo jeediyay qaybihii kala duwanaa ee la soo shaqeeyay muddadii uu xilkaasi hayay. muddadii koobnayd ee halkaan aan joogay runtii anagoo isku duuban hay'ad ahaan waxaan dalkan u qabanay wax hadda aan ay faan noqonayso ama dadka qaar ay u arkayaan in lagu faanayo laakiin xaqiiqo dhab ah. waxaa jirtay markaan halkaan nimid qofka madaxtooyada iyo aageeda yimaada inta la soo waca la dhihi jiray odayaal ha ahaadaan ama shacab caadi ha ahaadaan usoo dhuuntay civil society ku jira inta la soo waca ayaa la dhihi jiray waxaad tagtay maantay murtad yahow meeshaas waana ku dilaynaa. maantay dadku si firiya qofka ka yimaada buulamareer wuxuu awoodaa intuu madaxtooyada tago inuu buulamareer ku laabto ayadoon la fahmin. waxaan indhaha ka tirnay amniyaadkii iyo shabakaadkii shabaab ee magaaladan ka shaqaynayay ee dadkaas dhibaatada ku hayay. waxaan kaloo runtii ka takhalusnay oo waayahan ina maqal qarax gaar ahaan kuwii wadada roadblock oo wadada geeseeda la dhigi jiray oo baabuurta amisom iyo baabuurta kaleba la adeegsan jiray. waxay ku aruureen waxaad og tihiin oo kale oo hadda ay ugu dambaysoon rajaynaya saxaafaddu inay aragtay wiilashii xaafadan warta nabadda bambooyinkii iyo miinooyinkii dhigi jiray oo muddo la daba socday oo xalay lagu guulaystay iyagoo wada dhammaystiran shabakad yar oo kooban oo 4 qof ka kooban ayadoo dhammaystiran la soo qabtay. waxaan u cirib tirnay shabakad ilaa ay gaareen hadda inay go'aansadaan in dadka nabad sugidda ah qofka halkii qofba
hal qof oo isqarxinaya in lagu biimeeyo hal qof oo nabad sugida halkaas ayaan maraynaa waana sharaf haddii aan ka xigsanayno annagu dhimashadii dad kale waana loo diyaarsan yahay waxayna u diyaarsan yihiin hay-adda iyo shaqaalaheeda iyo kulli inay hawshaas sii wadaan kumana xirnayn shaksigu waa tegaya waa yimid wuuna tegaya waxaan kula dardaarmayaa runtii meediyaha anigoo si gaarana ulana dardaarmi doona meediyaha anigoo u marsiinaya inta aanay maqlayn ee gobollada joogta inay shaqadii kasii labalaabaan sidii oo aan la dhihin markii ninkii odaga ahaa meesha ka tegay ayay ayagiina relaxis ka noqdeen oo shaqadii iska fudaysteen inay cid walba oo meeshaan loo soo magacaabana la shaqeeyaan dawladda soomaaliyana waxaan u rajaynayaa runtii guul baan u rajaynayaa iyo hoggaanka hadda jira inuu guulaysto shacabka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa runtii inay taageeraan dawladda aniguna awood waxaan leeyahay waxaan ku bixin doonaa howlaha qaranka iyo inaan la shaqeeyo dawladda dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa kusimo u magacaabay xilkaasi uu iska casilay maanta agaasimihi hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed axmed macalin fiqi waxaana sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu magacaabay ku-xigeenada agaasimaha cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta TV-ga iyo idaacadda qaranka la hadlayay intii aanu ka ambabixin magaalada muqdisho ayaa sheegay in dawladdu ay ka shaqaysay in aanay gaab soo gelin xilkaasi uu iska casilay agaasimihii hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya waxaan magacaabnay agaasimo kumeel gaar ah oo muddo kooban fiican doona iyo maxaan ku rahday raggii muxuu ahay la socday oo aan rajaynayno in maxaan ku rahday ay imaan doonaan impeachment aan rajaynayno in ay muxuu ahay wax qaban doonaan oo waxay mudi doonaan haddii alla yiraa muxuu ahay marka meeshu marka dhacayo vacuum ama xidlo firaaq ma imaanayo waxaa meesha joogaa waa maamul ayaa magacaaban maamulkaasaa shaqada wadayo bedelkii agaasimaha iyo ku-xigeenadiisa iyo howlihii oo dhan dib aan u qaadaynay dhamaystirkeedana mustaqbalka dhowna si dhaba ayaa loo wadaa dib habeyn loogu samayn doonaa hay-adda wasaaradda howlaha guud gaadiidka dekedaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho kulan kala qaadatay injineerada dhismooyinka dalka soomaaliya iyadoo kale wada hadashay sida ugu habboon ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa waryaheena cabdisalaan cali mataan daacad kulankan oo ahaa mid qado ah ayaa waxaa hoteelka city palace ku yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dekedaha gaadiidka badda iyo tamarta injineer nadiife maxamed cusmaan iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi howlaha guud dekedaha gaadiidka badda iyo tamarta mudane maxamed cusmaan cali dhagaxtuur injineerada ku sugan magaalada muqdisho qaarkood gaar ahaan injineerada soomaaliyeed ee dalka wax ku bartay iyo xagga dhismaha kulanka oo ahaa mid ay madaxdu la yeesheen injineerada soomaaliyeed ayaa la iskula lafaguray kaalinta injineeradu ay ka qaadan karaan sare u qaadista howlaha wasaaradda iyo dibudhiska dalka iyadoo loo qaybiyey dokumentiyaal qoraal ah oo loo baahan yahay inay ka tala bixiyaan fikradana ay ka dhiibtaan si sare loogu qaado howlwadeennada wasaaradda iyo hawsha wasaaradda looga fadhiyo ee ah dhismaha dalka kulanka ayaa waxaa hadalkii ugu horreeyey ku furay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dekedaha gaadiidka badda iyo tamarta mudane maxamed cismaan cali dhagaxtuur oo ku tilmaamay in kulankan ahmiyad weyn u leeyahay wasaaradda sharaf ayayna noo tahay maanta in aan la qadayno injineerada soomaaliyeed isla markaasna aan iskugu nimaado howl ku salaysan ama ujeedadeedu tahay sidii wasaaraddan loo horumarin karo iyo sidii caqabadaha ay suurtagal tahay inay ragaadiyaan hawsheeda sidii looga hortegi lahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud dekedaha gaadiidka badda iyo tamarta injineer nadiife maxamed cusmaan ayaa sharaxday in kulankani muujinayo sida ay u soo noqon lahayd muuqaalka wasaaradda howlaha guud dekedaha gaadiidka badda iyo tamarta ay ku lahayd dalka wasaaradduna ay ku soo biirayaan bay tiri dad aqoon leh oo sare u qaadaya howlaha wasaaraddu ay qaranka u hayso waxaan oon iskugu kin yeeray waxay ahayd maanta inaan soo celinno magacii muuqaashii wasaaradda ay lahayd sida keliya lagu soo celin karo waxaa waaye the engine behind it waxaa ahaa idinkii inaan helo marka hore kalsoonidiina inaan helo taladiina inaan helo maskaxdiina si wasaaraddii ay u noqoto wasaaraddii caanka ahayd ee la yaqaanay ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska wasaaraddeenu waa 4 waaxood oo isku jirta sidaan haddaay hore idinkugu sheegay waa dib u dhiska guryeynta maxaa la dhahay tamarta
gaadiidka badda iyo dekedaha marka magac dheeraan wadanaa marka waxaa in la kala qaado marba in la qaado la analysis gareeyo la study gareeyo gas hal mar jabhad bad ama isku furi karno marka maanta waa shirweynii ugu horeeyay waa bilow fiican waxaan rajeynayaa inaan continue gareyno oo iga caajisin oo mar walba garabkayga tihiin aan rajeynayaa waa kulankii ugu muhiimsanaa ay wasaaradda hawlaha guud la qaadato injineerada Soomaaliyeed ee dalka wax ku soo bartay xagga dhismaha loogana fadhiyo in sida ugu macquulsan ay wax badan uga bedelaan hawlihii wasaaradda isla markaasna ay kaalin muuqata ka qaataan dhismaha guud ee dalka. Cabdisalaam Cali Matandaad, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay xero ay ku jiraan ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku taala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Faafahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena Faysal Muuse Maxamed oo ku sugan magaalada Kismaayo. kormeerka wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka bilowday taliska qaybta labaad ciidamada xoogga dalka ee Jubbooyinka iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo waxaana kormeerkaasi ku weheliyay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee Kismaayo ku sugan taliyaha ciidamada AMISOM wasiirka difaaca Cabdixakiin Maxamed Xaaji Fiqi markii uu soo dhameystay kormeerkiisa ayuu warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulan uu la qaatay taliyaha ciidamada AMISOM ee Kismaayo ku sugan isagoo tilmaamay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka AMISOM iyo ciidamada xoogga ee howlgalka ka wada gobolada Jubbooyinka waxa uu farta ku fiiqay in la sii dardargelin doono howlgalada lagu soo afmeeriyo maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada kale ee ma aragtay aanu naga tirsan oo kamboniinta runtii waxay ahayd wadahadal aad u dheer gaar ahaan markaan ku hormaro wadahadalkii aan la galay taliyaha AMISOM ee qaybtan labaad waa qaybtan sida ka warqabtaan waxay ka mid tahay qaybta labaad ee dhanka oo ma aragtay amniga loo qaybiyay waxaan ka wada hadalnay in la xoojiyo wada shaqeynta AMISOMta ku sugan halkan goboladan oo badan oo ay yihiin ma aragtay dawladda Kenya oo ka tirsan yihiin Kenya laakiin ay ku joogaan mandate-ka AMISOM inaanu xoojino wada shaqeyntooda inaanu ay joogta meelaha hadda farkutiriska ay wali ku harsan waxaan aad isugu afgaranay aniga AMISOM taliyaha AMISOM iyo saraakiishiisa kala in danteenu ay tahay in ma aragtay aanu arrimahaas aan soo sheegnay aanu ka xoojino si amniga iyo security-ga iyo xasiloonida labada dal loo xoojiyo inaanu leenahay cadow common ah oo naga dhaxeeya oo ah cadowga qalaasaha ka wada dalkeena ee nabadgelyada u diiday ummadda Soomaaliyeed iyo isla cadowgaas oo Kenya ka wada runtii dhibaatooyin xasiloon kormeerka wasiirka gaashaandhigga ayaa ku soo gabagaboobay jawi degan waxayna ahayd midii ugu horeysay ee tan iyo markii wafdi dawladda Soomaaliya ka socda ay soo gaareen magaalada Kismaayo oo wasiirka gaashaandhigga ku soo sameeyay kormeer xiriya ay leeyihiin ciidamada xoogga Faysal Muuse Maxamed Telefishinka Qaranka Soomaaliya Kismaayo guddiga dib u dhiska baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay qaybo kamid ah wadooyinka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ka soconayso dayactir ballaaran oo lagu soo celinayo bilicda wadooyinka degmadaasi faafahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Cali Cabduqaadir Cali Michael guddigani oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimo la xiriira gaadiidka wadooyinka dekedaha iyo tamarta ayaa maanta kormeer ku tagay degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho halkaas oo mudooyinkii u dambeeyay ka socdeen howlo lagu dayactirayo wadooyinka dhexmara degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho xubnaani uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga gaadiidka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ay gaareen degmadaasi waxa ay la kulmeen mas'uuliyiinta maamulka degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho iyagoo ka wada arrinsaday sidii loo xoojin lahaa howlaha lagu dayactirayo wadooyinka isla mar ahaantana lagu soo celinayo bilicda ay lahaan jirtay degmadaasi ugu horeyntii waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho Maxamed Abuukar Jaafar waxa uu faahfaahin ka siiyay guddigii ka socday baarlamaanka Soomaaliya howlaha dayactirka ee ka socda gudaha degmadaasi wadadan waa wadadii saddexaad oo hadda iskuuska bakaaraha tii ku xigtay iyo tii ku sii xigto suuqa ariga waa labadaas ka soo shaqeynay tanna waa tii buhusha ahayd oo biyuhu mari jireen inta badan oo saddexaad ilaa shan kalena ilaa iskuuska Howlwadaag nooga dhiman tahay iyadana shaqooyinka kalena waa ka qabanay dhisitaanka iyo simitaanka ayaga noogu dhiman hadii la yiraahdo waana sii wadaynaa intii aan la soco karno oo wax qaban karno cid walba naga kaalmeeyana waa u baahanahay haddii dawladda tahay haddii ganacsato tahay haddii ay shacabka tahay
hadda waxa shaqadan aan ku wadno iyo qaabkan u wadno waxaa nagala qayb qaata shacabka deegaanka degan iyo ganacsatada qaybo kamid ah cid walba gobolka banaadir oo asuguna maaragtay wixii culays oo anaga lagu yimaado aan ka kaashano asigana intaasba hadda waa nagala qayb qaataan maantana waxaan u maleynayaa haddii baarlamaanka uu nala joogo inuu isna shaqada xoogeeda oo ku darsan doono xildhibaan cismaan aadan dhuubow oo isagoo gudoomiyaha guddiga gaadiidka ee baarlamaanka Soomaaliya horkacayna xubnihii maanta booqday degmada ayaa sheegay in tallaabo horumar leh ay tahay howlaha dayactirka ee ka socda degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho runtii farxad weyn ee noo tahay maanta laftigeena goobta aan taagana oo shaqada hawsha horan ugu socotay guddiga gaar ahaan waa hawsha asaga deelaal maash in uu u kurgala xaaladaha jira wixii dhisma ama qaab kale ama wada leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida wanaag leh gudoomiyaha noogu soo dhaweeyay deegaanka iyo degmadiisa aadna waxaan ugu hambaleynaynaa shacabweynaha iyo ganacsatada iyo nidaam cid alaal cidii asaga garab ku siinaysa ee kaalmo la ahayd muddada gaaban hadda aad u shaqeynaya intaana waa daawanayna waa la socon xaaladiisa waa mid lagu dhiirigeliyo qof kasta oo muwaadin oo sida hadda gudoomiyaha u bilaabay oo kale wax u wada sidoo wax ku wadan hadda waa arkaynaa waa iskaashi adag waa ognahay dhinacyo badan inaysan wax badan ka helin ka baarlamaan ahaan ka guud ahaan waxaan aad u rajaynaynaa fariinta adag ee hadda maanta aan arkayna indheena aan ku qaadno inaan meelo badan gaarsiin doono wadadani oo inta badan lagu aqoon jiray magaca loo yaqaanay Ceelgarweyne ayaa waxaa la aaminsan yahay inay ahaan jirtay wada inta badan la isticmaali jireen waxaana qaar ka mid ah dadka deegaanku ay tilmaameen in muddo ka badan 30 sano ay dhibaato halkan ka taagnaan jirtay hase yaatee shacabka ayaa farxad ka muujinaya howlaha dayactirka ka socda gudaha degmada Howlwadaag ee magaalada tan Muqdisho Cali Cabdulqaadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo xalay qaybo ka mid ah degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir ku doonayay in ay ku aasaan wadooyinka dhexmara degmadaasi miinooyin iyo walxaha qarxa kadib howlgalla ay sameeyeen ciidamada ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu soo bandhigay maanta magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya waryaheena Ibrahim Isaaq Guudle hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay 4 ruux oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab 4 wiil oo maanta lagu soo bandhigay xarunta hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu soo qabtay howlgal qorsheysan oo xalay ciidanka hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir kadib markii ay ka warheleen xog ku saabsan dhagarqabayaasha kooxda Al-Shabaab oo maanta la soo bandhigay ay diyaarinayeen walxaha qarxo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed raggani maanta hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ay soo bandhigtay ayaa qaarkood waxay wateen ID kaaro ay ku qornaayeen magacyada mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho dhalinyarada hay-adda nabad sugidda qaranka maanta ay ku soo bandhigtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay waxyaabihii lagu soo qabtay xilliga ciidanka nabad sugidda ay gacanta ku soo dhigayeen iyo falalkii argagixisnimo ay maleegayeen waxaan deganahay Wardhigley waxaan ku dhashay degmada Wardhigley gaar ahaan Geejacel xalaano barnaamij ka fulinayo gurkiga dalcadaan cabda ee degan ciidamada nabad sugidda amnigiisa guriga nagu adkaaday markaas waxa aragnay laba nin oo sheeg oo nabad sugidda ka tirsan labadana marka ay sheeg ku tuuro bombal waa ka soo tagay kuwa kale ay hormaadeen soo xabadayeen meesha ay ugu soo qabteen marka aniga wax program lagu soo qabtay malahan oo ninkan odayga message kala hadlayna bas message program aan u diro wahay programka lagu soo qabtay bombada oo tuuray lagu soo qabtay oo markaas aniga u keenay alaabta kadib siyaasa lagu qabtay marka soo labadan guri lagu keenay alaabta u keentay maxay bombadii oo habeenay aniga u keenay sidaad la sheegay meel oo alla ka qof ay diibay oo u hay yara ii diibay mid yar hore oo mar askar islaan هذا هو كل شيء نسأل الله حلو ساقط له. يركز أو هذا. لكن ما أقان. بين وجهات. يركز صاحبك واي من تقان. صاحبك ما أقان صح. شاب مركه هرا له مركه هذا راح يقول بشيء دفاعي يقول بشيء أنا. كين ميلته لكن واحد هذا وكسبسيه يقوني منه أملي. بعدها رجعنا كله يسوي ما يسوي في الشريعة. كانت ليش قينين. أو مركز. شغلك ولا حد خبطه مقتشان خبطه
إيه الهرم أسكتها ما ولي هذا موقف عسكري اللي عاي ميدان وهذا كده اللي بره ما هذا ما أقان waxa lagu soo qabtay malahan haka ana xalay guriga iska jiifo la imaaday waa la soo keenay kadib waa la soo waday marka inta la keenay wax ragga hadii sheeg labana isku xaafadna ma ogiye ninka ma aqaanaba marka labana isku xaafadnahay isla wardhigle isla aniga markii sheeg dhanka caadignaa oo hawladaaga marka waxaan ka shaqeynaa farmasiga oo hawlada ku taal way yaqaanaan dadka badan aniga shakhsi ahaanteyda horta markii hore waa ahay kadibna isha xabsiyan galay hal sano bar xabs ku jiray kadib waa soo baxay marka soo baxay dawladda aniga fal iyo isha kuma ana fikirin bukuleelka soo arksana ma jiraan alaabtan farmasiga lagu keenay farmasiga alaabtan ragana lagu qabtay oogiye aniga guriga iska jiifa isha la soo qabtay xalay 8 saac ku dhig farmasiga wax la soo dhigay ma jiraan oo maxaa la soo dhigay qofkii sheeg marar isku dambeeyay qofka dii sheeg oo calaashan oo wax idin ka dhaxeeyo oo markaas saaxiibo eedeen markaas wax ku keena laakiin marar sheeg ugu dambeeyay xabsi markaa soo baxay kadib waaba ka tanaasulay sama hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed iyo muddooyinkii dambe waxay waday howlgallo ay ku soo qabqabanaysay rag ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab kuwaas oo falka argagixisnimo ka geysta gudaha magaalada Muqdisho. Ibrahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. hay-adda maareynta masuuliyiinta qaranka ayaa maanta deeq kala duwan oo gargaar gaarsiisay isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo maamulka isbitaalkaasina uu sheegay in gargaarkaasi la soo gaarsiiyay uu ku soo degmay xilli dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan isbitaalka magaaladaasi. faafahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena Cilmi Maxamed Waare. deeqdan gargaarka oo isugu jirtay raashin, saliid, shidaal iyo sidoo kale qalabka lagu nadiifiyo isbitaalka ayaa maanta la gaarsiiyay isbitaalka magaalada Beledweyne. deeqdan ayaa waxaa isbitaalka gaarsiiyay جمعية gargaar oo wakiil ka ahayd hay'adda maareynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya oo deeqdan ugu deeqday isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne. deeqdan raashinka ee la gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay wax ka tari doontaa baahida raashinka ee dhanka isbitaalka iyadoo muddo bil ah raashinkan uu yahay mid la siin doono dadka jiifa isbitaalka iyo sidoo kale shaqaalaha isbitaalka. Cabdullaahi Yuusuf Nuur oo ah wakiilka jimciyadda gargaar oo wakiil ka ahayd hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa ka warbixiyay deeqdan uu gaarsiiyay isbitaalka. رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى بام هذا ما أنت وحن سون مدي استثال كبلد وينه هي أدي مرة كترتي هايسي وحيابي يركها هاي راني كوستجا هاي وليس يكون وقتي سدا شدال كا يو أنت لسينا يو تكون مساكين كا وجيفة استثال كبكان كا وحيابا أنا رافضة أيها وحى جار هذا جماعة الجار وكانتي هل بال انتي ay ku socdaan taas oo hay'adda sida meesha ka muuqato maareynta masiibooyinkana ay bixinta qarashka ka lahayd jumciyadda gargaarna ay fulisay sidaas darteed maanta kulankeena waxa weeye maamulku joogaa cidda ka joogto guddiga isbitaalka way joogaan guddiga muxuu ahay dhaqaatiirtii way joogaan marka waxa weeye saddexdaas oo wada jiro ayaa waxaan ku wareejinaynaa muxuu ahay arrimahaasna laga soo codsaday oo ah inaan hal bil socodsiino isbitaalka Beledweyne waxyaabaha yarka oo ran koostiga inta hadda aan soo sheegay oo bukaanka raashinkiisa iyo deeqdan isugu jirta raashinka, saliidda, shidaalka iyo sidoo kale qalabka lagu nadiifiyo isbitaalka ayaa waxa gudoomay dhakhtarka guud ee isbitaalka magaalada Beledweyne Dr. Xasan Umar Siyaad iyo agaasimaha guud ee isbitaalka Dr. Ahmed Maxamed Khaliif waxana ay sheegeen in ay loo baahnaa raashinka noocan oo kale in la soo gaarsiiyo isbitaalka nagadiida muslimiina nadareentii inaan taageerno oo keena tabartiiran inaan taagno waxaan mahadcelin u jeedinaynaa jamciyadda gargaar iyo hay'adda maareynta masiibooyinka oo halkan soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Beledweyne intuu ku socon lahaa hal bil macnaheedu waxa weeyaan shidaalkii matoorada isticmaal lahaayeen iyo biyaha cuntadii bukaanka jiifa la siin lahaa nadaafadii isbitaalka intaa wixii ku bixi lahaa isbitaalka hal bil inay bixiyeen isbitaalka baahdiisu intaa way ka bilaaban tahay طبعا shaqaalaha jiro laakiin shaqaaluhu hore wuxuu u sheegay inay ku shaqeynayaan volunteer ama si mutadawacnimo ah taa ayaa walays badan nagu eed annaga oo mararka qaarkood nagu qasbaysa inaan u sheegno ganacsatada magaalada oo dhahno waryaa bishaan isbitaalkii
bukaanka ka yimid baayo bakool ama zone 5 ama ka yimid gobolada ka bahan jira degmooyin kale aan halkan waxa aan u joogin 24 saac isbitaalka dhex jiif waxa laga taageeraa in loo sameeyo quraac iyo casho laba shay oo runtii wax weyn ugu fadhiyo aad baan ugu hadalnaa jamciyadda gargaar iyo maareynta musiibooyinka rag ka socda aad baynu mahadsan yihiin sida dhakhtarku u sheegay aan mahad aad u ballaaran aan u celinayaa jamciyadda gargaar iyo hay-adda maareynta musiibooyinka oo maantay isbitaalkii beledweyne soo gaarsiisay raashiin iyo shidaal iyo nadaafadii wixii looga baahnaa oo bil ah runtii arrin aad farxad u leh waayo maanta inayna soo gaarsiiso hay-addaas maadaama aad loogu dhib qabay arrintaas isbitaalkan oo waxa kaalmaha uusan haysan shaqaalihiina ay si mutadawacnimo ay ku shaqaynayaan waxaan leenahay waa aad ayaan idugu hambalyaynaynaa howshaas wanaagsan oo qabateen isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa ku dhawaada muddo 3 bilood waxaan jirin wax hay'ad oo gacanta ku haysa kadib markii 12 December ee sanadkii la soo dhaafay 2012 ay ka tagtay hay'adda MSF Swiss oo muddo 6 sano gacanta ku haysay isbitaalka magaalada beledweyne cilmi maxamed waare telefishinka qaranka Soomaaliya beledweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa maanta dib ugu laaftay magaalada beledweyne iyadoo halkaasina si weyn loogu soo dhaweeyay kadibna waxa uu gaaray xero loogu talagalay in lagu dabiibo dadka uu soo ritay cudurka shuban biyoodka oo ku taala deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne isagoo halkaasina gaarsiiyay deeq gargaar daawa faafahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna Cabdishakuur Ismaan Cali wafdigani balaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya Cabdifataah Xasan Afrax ayaa galinkii dambe ee maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii ka soo kictimeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha ayaa markuu ka soo degay gaagada diyaaradaha Waas Khaliif Airport ee magaalada beledweyne waxa soo soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne iyo waliba saraakiisha ciidamada AMISOM ee ka socda Jamhuuriyadda Djibouti oo xaadir ku ahaa garoonka diyaaradaha Waas Khaliif Airport ee magaalada beledweyne gudoomiyaha wafdigiisa ayaa waxay soo kormeereen deegaanada la geeyay dadka soo ritay cudurka shuban biyoodka ee ceel jaalle halkaas uu gudoomiyuhu gaarsiiyay deeqda waa uu talagalay in lagu dabiibo dadka soo ritay cudurka shuban biyoodka ee ku sugan deegaanka ceel jaalle gudoomiyaha iyo wafdigu hogaaminaya ayaa loo soo gudbiyay magaalada beledweyne gudaheeda wadooyinka magaalada ayaa lagu arkayay boqolaal dadweynaha oo watay calanka Soomaaliya iyo caleemo qoyn u raxayay gudoomiyaha gobolka ee maanta soo gaaray magaalada beledweyne gudoomiyaha ayaa markii loo soo gudbiyay magaalada beledweyne gudaheeda ayaa waxa uu bahda warbaahinta kula hadlay hoyga ka degan yahay gudaha magaalada isagoo sheegay in magaalada beledweyne uu maaday sidii deeqdan daawada uu soo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo soo radinayo cudurka shuban biyoodka isagoo u ballan qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya deeq lamida daawadan oo soo gaarsiin doono dadkan cudurka shuban biyoodka soo radinayo ee ku sugan magaalada beledweyne inaan idin sheego in badan ayaa beledweyne waxaan maqnaa shaqo qaran ayaa maqnaa waxaan hadda ku imeeyo najarbiya degdega oo aan u talagalay xaaladda ka jirta magaalada beledweyne ee dhibaatada caafimaad ee soo wajahday dadka reer Hiiraan inaan la qaybsado waa la fadhiya waa la joogayaa waxaan keenay degmo hordhaca oo aniga gudoomiyaha waxaan ku soo gaartay markaan wareegtay kadib isbitaalka beledweyne Dr. Maxamed Khaliif intii igu sheegay oo ku dhaqay ka qodobada dawladda ka go'aanay waa keenay sharafta waa keenay insha Allah gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa muddo 2 bilood ka maqnaa magaalada isagoo galinkii dambe ee maanta dib u soo laabtay magaalada si weyn loogu soo dhaweeyay Cabdishakuur Ismaan Cali SNTV beledweyne magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka furmay tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhalinyaro Soomaaliyeed kaas oo loogu magac daray isdhexgalka Soomaaliya faafahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheenna Fiidow Maxamuud Fiidow koobkan kubadda cagta oo ay ka soo qayb galayeen 4 kooxood oo kala matalaysa Soomaali galbeed Soomaalida NFD ee Kenya degta Djibouti iyo koox matalaysa Soomaaliya ayaa waxa soo abaabulay ururka ardayda sanaag ee jaamacadaha dalka Suudaan ka barata ujeedka koobkan ayaa waxa uu yahay sida ay sheegeen madaxda ururkaasi sanaag sidii walaaltinimo iyo iska warhayn ugu dhex dhalin lahaayeen Soomaalida meel walba ay joogaan ama ay ka yimaadeen ee ku sugan dalka Suudaan
ciyaartii ugu horeysay oo xalay dhex maraysay koox matalaysa Soomaali galbeed iyo Soomaaliya oo ka kooban waqooyi iyo koonfur ayaa waxa goobjoog ka ahaa madax ka kala socotay ururada ardayda ee Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo Soomaali galbeed ee Ethiopia dhex degta. ciyaartaas oo furay xogayaha ciyaaraha ee dhaqanka u qaabilsan ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo iyagu ka qayb qaadanaya isku dubaridka koobkan ayaa sidoo kale waxay aad u amaaneen koob noocan oo kala ah oo la soo keenayo dhammaan ardayda Soomaaliyeed meesha doonaan ka yimaadaan. Cabdirashiid Maxamed oo ka mid ahaa madaxdii ururka Sanaag ee soo abaabushay koobkan kubadda cagta ayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed kula hadlay garoonka ay ku dhex maraysay ciyaartii koobaad ee Soomaaliya iyo Soomaali galbeed ayaa waxa uu ka warbixinayaa ujeedka ay u sameeyeen koobkan. koobkan waxa qabatay ururka ardayda Sanaag ee macaahidda iyo jaamacadka waxaana u qabanay waxaana ka qayb galay afarta Soomaali weyn Soomaaliya, Soomaali galbeed, Djibouti iyo Soomaali Kenya. waxaan u qabanayna laajil walaaltinimo iyo isbarasho wana koob xaqiiqi qiimo weyn kale laana waxa isugu yimid koobkii ugu horeeyay noocan oo kale oo Suudaan lagu qabto in dhammaan ummadda Soomaaliyeed Soomaali weyn lagu kulansiyo koob aad baan mar labaad iyo saddexaad ugu faraxsanahay soo soconayo koobku waa iswad arag waxaana ku soo khatimeynaa khatimaad fiican waxaana laga soo qayb galay koobka dhammaan itixaadka ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan oo gacan weyn kala qayb qaatay koobka furayna waxa kale ka qayb qaatay itixaadka ardayda Djibouti itixaadka ardayda Soomaali galbeed iyo itixaadka ardayda Kenya ama urur midowga ardayda Kenya urur midowga ardayda Soomaali galbeed iyo urur midowga ardayda Soomaaliya dhamaantood aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo saxaafadda TV-ga qaranka. koobkan ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu noqdo mid isku keena ardayda Soomaaliyeed ay ka kala yimaada dhammaan wadamada dariska la Soomaaliya iyo Soomaaliya gudaheeda iyadoo tuulo walbaahi oo Soomaaliya kamid ah qof ka yimid laga helay dalka Suudaan. koob noocan oo kala ah oo ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan loo qabtay ayaa wuxuu ka qayb qaadanayaa sidii ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadii ay halayeen kuwa Soomaalida Ethiopia ama Soomaalida Kenya ama Soomaalida gudaha Soomaaliya degan iyo Djibouti intaba sidii ay isdhexgal u sameeyay lahaayeen samarhantaana ay isaga war helaayeen oo ogaalaayeen inay yihiin hal Soomaaliya oo ay ku wada hadlaan luqad iyo diin kaliya haystaan waxaana la oran karaa waa midkii ugu horeeyay oo koob kubadda cagta oo noocan oo kala ah dalka Suudaan lagu sameeyo ay sameeyaan ardayda soo abaabushay barnaamijkan فيدو محمود فيدو تيفي قرنك الصومالية الخرطوم السودان شد لغاد لي سيدا اللي سيدك عشان لها أمان كي يدرس وناك قيس لما كان لوقف في الجبال لها بقى لغا إيو همورك كدشا حلقة داقسينك هيا لغا بطي ديان كدباد أو كترسن قبل كالقدود كاسو أي كفا يدرين مسؤولين ككرا سعوتي دقمولي كعدادو إيو سيدو كلا دقمود عبود قبل كالقدود ففعلت وقعتي وحيرا صدري وليهنا محمود عبد الدرشة shir nabadeedka uu soo agaasimay maamulka Xaban iyo Xeeb ayaa waxaa maanta lagu qabtay duleedka bari ee deegaanka Dhabad ee gobolka Galgaduud iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan madax dhaqameedyo nabadoono iyo waxgaradka labada dhinac waxaana kulankaasi looga arrinsanayay sidii looga hortagi lahaa colaad beeleedyada xilli roobaadkan bilowga ah waxgaradka labada dhinac ayaa yeeshay kulan saacado qaatay waxaana markii uu soo dhamaaday si wada jira u faahfaahiyay nuxurka shirkaasi wasiirka arrimaha gudaha Xaban iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye iyo gudoomiyaha deegaanka Dhabad Aadan Gabi shir nabadeed buu ahaa waxa keenay marka meeshan dadku asoo oo doori u deganaa baa waxa ka dhacay roob yar dadkii baa isugu yimid si marka ma taqaanaa dhibaato ay soo dhicin ayaa wax garadkii ama cadaadad joogay ama Dhabad joogay isugu yimaadeen aad iyo aad nooga